مدحوينها جمهورية الصوماليلاند يا بروفيسور علي خليف قليل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ودقنكي أي أمدن لهايد. waxaa maanta magaalada Caynaba lagu soo gabagabeeyay heshiiska madambeys oo u dhaxeeya maamulka Khaatumo ee Soomaaliland wadahadalo soo socday in ka badan 24 bilood sida ay sheegeen mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay magaaladaasi waxaana ay qalinka ku kala duugteen heshiiska madambeysa madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Ali Khaliif يا مدحوينها Somaliland أحمد محمد محمود سيلانيو وحنا جوبتوكا ها جديدي وضهدلذا إلا وضع ديناعو قابل سنة مناسبات بلارنا ولقسوا ميريي وضهدلذا أيا وحاكا قيب قلايو ضياش يقار كمدا وحقرت كلا ديوانا قبل كسول كواسو سيكل يمي مقالوين كبوهود لويد لاسعانو دي هرقيسا وغهرين وحالكاسي فافاهين كبيحيي دكتور سعد علي الشيرة وزيركا وزارة أرمها قدها Somaliland maanta oo ay bishu tahay 20 October 2017 waxa halkan hortiina ku wada saxeexan doona heshiis ay gaareen Jamhuuriyadda Somaliland iyo Khaatumo heshiiskaas oo muddo sanadaha hadda soo socday heshiiskaas waxa kala saxeexan doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo Dr. Ali Khaliif Galayd qodobada iyo nuxurka heshiisku waxa weeye oo ku salaysan heshiisyadii hore sidan soo socota in la cadaalad iyo sinaan iyo nabad ku wada noolaasho in la wada ilaaliyo jiritaanka iyo madax banaanida Somaliland in khilaaf kasta oo jira lagu dhameeyo wada hadal iyo jid nabadeed in la adkeeyo midnimada iyo nabad ku wada noolaashaha in dastuurka dib loo furo si loo sugo awood qaybsi ku dhisan cadaalad iyo sinaan guddi joogtaana arrinkaas loo saaro in dawladda Somaliland ururada samafalka iyo hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ka hawlgalaan sidii mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah looga sameyn lahaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle ciidamada hubeysan ee Khaatumo la qarameeyo oo wadanku yeesho ciidan qaran oo suga xuduudihiisa Maxamed Xaaji Aadan oo halkan igu soo dhaweeyay runtii wuxuu ahaa tiir dhaxaad wada hadallada soo socday muddada isna waxa loo baahan xuso rag kale oo fara badan ayaa ka soo shaqeeyay intaas kadib heshiiskan waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka gobolka Somaliland wanaagsan oo mid ah in la wada yeesho waa la heshiiyay labadii odayba hadda halka fadhiya heshiiskoodaas ayaa waxa maanta ka bilaabmaysa halka Somaliland wanaagsan oo mid ah waxa kale ku xigaya waxa weeye sidii qodobadan lagu heshiiyay mid walba la isku dul taagi lahaa ama loo fulin lahaa waxa lagu heshiiyay nabadgelyo wixii hore dhacay in la iskaga garaabo la iska dhaahiyo laga xaajeysto wax dambana ay dhicin madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo Professor Ali Khaliif oo isku waafaqay